dhalinyaro isxilqaantay ayaa maalmahan magaalada Jowhar waxay ka wadeen wacyigelin ku saabsan ka hortaga cudurka covid19 maanta waxay soo gaareen xaafada horseed oo kamid ah xaafadaha magaalada Jowhar waxayna agab loogu hortago cudurka covid19 ee u qaybiyeen ururka nadaafada ee xaafada horseed ogoreen waxa goobta ka hadlay wacyigelyaha ururkan isxilqaantay Xasan Suleymaan Maxamed iyo gudoomiyaha ururkan Shariif Axmed Cali Sow wax walba wacyigelin hore waan u maqalnay haddana waan wacyigelinaynaa waxaan wacyigelin u sameeynayaa khatarta uu leeyahay coronavirus-ka corona horta awalan wuxuu leeyahay cudur oo waxa isku arkaysaa qandho qufac iyo hindisho calaamadahaas hadda isku aragtid waa calaamadii corona lagu sheegay marka waxa la rabaa inaad ka foojignaatid oo meelaha caafimaadka iyo asiga meelaha lagu daweeyo inaad tagtid waxa ugu hortagi kartaa horta ugu horeyn inaad face mask xiratid ka urur ahaan waa garab taaganahay waxyaabo badan oo dhameystir u baahan oo agabyada ay ku shaqeeyayeen iyo bulshada qaabka ay ugu adeegayeen wax badan ka dhiman waxaan jecelnahay Ilaahay haduu yiraahdo ka urur ahaan inaan la soo gaarno waxyaabaha asaasiga ah oo nadaafada looga shaqeey lahay hadii ay ahaaleed maknizooyinkii wixii wax lagu xaqay iyo wixii wax lagu jaray iyo galoofiski insha Allah ta'ala aad iyo aad u mahadsantiin dhinaca kale waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha xaafada horseed Cabdikariin Xamuud Xasan iyo gudoomiyaha ururka nadaafada xaafada horseed Faaduma Cali Nuur marka dhalinyaro waxaan in ka rabnaa farkeetiyaal waa u baahanahay galoofis waa u baahanahay face mask hadda waa noo keenteen waa u jeeda waxa jiro anaga markaan shaqada markaan ku jirno leexan qaadano waxa dhaceysay in bajaad lees raacay bajaad 4 qofood meel 2 qofood loo rabaa 4 lagu raacaa waxaana neefta keenaysa iyo eriga aad eriyaysid xantuufta faniinaysa waa keenay marka waa ku mahadsantihiin jira oo jooga anoo la hadlayo bulshada xaafada horseed waxaan rabaa maalin walba oo u sheegnaa waana kala hadalnaa nadaafada waana ka wacyigelinaa nadaafada waxay tahay qof walba islaam way og tahay waxaan u asteynoo kale inta hadda wixii nadaafada ku saabsan isnaayo kale inaan maartay yani aan ka sameeynay god qashin oo wasaqda la geeyo hadda waxa arkooysiin waa kana galaashayna yaalo waa xaafada dhexdeed waxa diris kale oo dhinaca ka xago waa guryo oo meesha degan waxa la rabaa inay ka hadlaan gurigooda ka soo qaadaan intay keenay waxa ka shaqeeyayo qashinkoodii xafaayada cunugoodii saxaradiisii qaadayo gabdha anba maamooyin ayagoo kala marka mar walba noo u sheegnaa marka ha xishoodaano ilaahayna ka xishoodaano ilaahayna ka baqaano waxa wasaqda ay keenayaan gurigooda wajigiisa ay dhigayaan waxaan kula xisaabtami doonaa aniga ma ogeyn iyo dad ay soo dhigay kama yeeli doon waxaan kula xisaabtami doonaa qof allaale qofka gurigiisa agtiisa qashin aan ku aragno waxaan u arkaynaa in ay qashinka dhigtaydan kula xisaabtami doonaa Yusna Maxamed Axmed Hirshabeelle TV Jowhar